Banaanbax loogu soo horjeeday dil xalay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir loogu geystay laba ruux ayaa maanta ka bilowday isgooska Jubba ee magaalada Muqdisho. Dadweyne cariisan ayaa iskugu soo baxay wadooyinka waxa ayna siteen taayiro kuwaas oo ku dhex gubay laamiga iyagoona muujiyay sidii kaga xun yihiin dilkii xalay loo geystay laba ruux oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah kuwaas oo lagu dilay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale burburiyay boorarkii xayeysiinta ahaa ee uu ku xardhanaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Banaanbaxayaasha qaarkood ayaa warbaahinta la hadlay waxayna dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka codsadeen inay cadaaladda ay soo taagaan shaqsigii ka dambeeyay dilkii labadii ruux ee xalay lagu dilay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. gabadhayda oo aniga dhalay walaasho adeerkood yahay warkay ma faantay aabeed waxa la yiraahdaa Umar Cali Cadaawe adeerkii la dilay waxa la yiraahdaa Xasan Cali Cadaawe warkay ma faantay Soomaali ahaan aba qiirdaydu kacsan tahay saas muu kacsan aniga qabiili waqti muu kacsan ay gabadhaadu wilkeeda la dilay $2 aan dhiibo $2 aan dhiibo oo u tuuraya macnaa ii tuur $2 ii tuur amba gurigaaga aadi mayso laakiin waxay ka macaashayaan jidka hal xiro hal saacadii la gaaro hal xiro Soomaalidu waxay u badan tahay macnaa intaan hal gooyo hadii la yiraahdo garabkay gooyinayaan Sooma aniga macnaa ninka la yiraahdo dibadda waxa uu ninka la yiraahdo gurigiisa ninka u socda lama celi kara la yiri waxa lagu yiri adiga hal saac horta bandow ma laga dhigaa inta u socotaa war anigu gurigeyga u socda hal saac fiir aniga hadda suuqan ka shaqeeyaa suuqa hadaan macnaa ka tago alaab aruursado tago maghrib la dukado iyadaba hal saac goorma marka ninka la yiraahdo guriga aadna marka wuxuu ku iska noqo intaadu naqee guriga waa ka horeeya saaka ka soo shaqo tagtay hadii doonto culays saaba jiraba islaantaadii afoole guriga aadi bakartida lagu hay dawladda waxa laga rabaa walax lagu noolaa dadkuna ku noolaayo iyaduna dawlad ku naqayso inay ka shaqeyso wabillahi tawfiiq diiso taagnay xaro la qorya wadnaha la saari wuxuu yiri waa xarona qorya iyo qaad kama qaadaya xaro xoog ma wata waa xarona qorya iyo qaad hadalkiis iskama dhamaanin xabadii waa loo tirsiirkii waa loo dhuftay taliya wax mas'uul ila hadda aan hayno malaha anaga wax war aan ka hayno malaha inay askari xiriya in kale wax war iiga iska watan qof oo mas'uul oo noo imaad ila hadda malaha waxaan rabnaa in askariyaas cadaaladda la soo taago faamino anta kala bandooda 2 saac isugu ogaay hal saac ay noo imaadeen hal saac ay rabshadaas noo sameeyeen gabar iyo wiil meesha ku dileen shacabka Soomaaliyeed bandoo wali ka maashay bandoo labadooda way dhinteen dhul naf lama dhacin bandoo wuu jira laakiin xal ya bilawnay ilaa cadaalad aan ka helno waa soconaa bandoo ilaa cadaalad aan ka helno waa soconaa mudaharaadka ma joogsanayo waxaan u jeednaa in ummadda cadaadiska iyo dhibaatada lagu hayo laga daayo ayaa habboon haddaan laga daynin sidaan iyo si ka daran iyo dhibaato ka badan ayaa ka imaanaysa waa uga digaynaa qolooyinka booliiska qolooyinka dawladda dhammaantood ciidamada waa inay ka foojignaadaan shacabka leyntiisa baabi'intiisa iyo ciqaabta la marsiinaya waa in laga fiirsado waxaan kaloo u sheegayaa dadka bandow waa la soo saaraa 2 saac qabateen 2 saac waa laydinka amar qaatay in hal saac ummadda lagu laayo ama jidadkii loo istaago ama nin maahnaayo gaajo hayso oo rafaasan oo jidka mari weysan oo la leeyahay noqo oo meelow aad aan aqoonin oo irsaqa caruurta uu sida inuu daadiyo iyo inuu ka lugeeyo noqotay oo bijaaj raaci karin taas wax macquul ma qof looga dulqaad karana Umar Cali ninka la dilay adeerkii Xasan Cali Cadaawe xaq darana lagu dilay waxa rabay xaqiisa in loo dhacsho madaxweynaha Farmaajo wadadka soo amray iyo Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay adeerka in loo xaq dhacsho cadaalad jirto in loo xaq dhacsho adeerkii Xasan Cali Cadaawe dirskooda Allah xariisto intaas kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Finisha ayaa waxa uu soo gaaray goobta banaanbaxayaasha isagoona banaanbaxayaasha la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ay ku dhigeen shakhsiyaadkii dilka geystay cadaaladana la soo taagi doono dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aano ayaana ka soo bixi doona go'aanada soo bixi doona aan dhowrno waxaan doonayaa oo kale inaan idiin sheego annagu adinka ayaan garabkiinna nahay xanuunkeeda
mar haddii aan idinla wadaagayno tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa xalay si mas'uuliyad darro ah ayaa 2 qof oo shacaba wuxuu ku dilay askari booliis ah askariga booliiska ah ee dilay shacabka Soomaaliyeed laayay ayaan فوضى الداية ولا ليال فوضى الداية فوضى هلا الداية أنا اسم قلو فوضى هلا الداية أنا اسم قلو فوضى هلا الداية deeq macna Chino Cheki Zab TV magaalada Muqdisho